salka shanaad wuxuu yidhi waagii dagaalada sokeeye socdeen ninbaa wuxuu soo dhacay geel uusan garanayn ciddii lahayd. geel buu soo dhacay mana garanaya ciddii iska lahayd. hadda wuxuu doonayaa inuu geelii iibiyo oo waqaf ka dhigo masaajid iyo meelo khayra geliyo. sidaasi qofkaa ma samayn karaa? diintiisa maxay ka qabtaa? ama dayn ha noqoto, jawaabtu waxaa weeye ama dayn ha noqoto ama xoolaha xatooyada iyo dhaca iyo boobka iyo kugu soo galay ha noqdaane, haddii xuquuq dhaqaale iyo maal oo aadama leeyihiin kugu maqan yihiin, dadkii lahaana aadan garanayn, si aad u garataana aanay jirin, dariiqaas weeye midka keliya ee furan ah in la sadaqeeyo oo meel wanaagsan xoolihii lagu bixiyo, si dadkii hadday u waayeen intifaaca maalkooda adduunyada ugu waayeen, aakhare iyo ajirkeedii isagoo la sadaqeeyey oo batay ay u helaan. adigana halkay kuu raacan lahaayeen hantidoodii iyo xoolahoodii oo ajirkaaga ay qaadan lahaayeen ama dembigooda lagu saari lahaa, ay xijaabkaaga noqoto xaqoodii aakhare ay helaan, isagoo ka nacfi badan kay adduunka ku heli lahaayeen. saas darteed qofkaasi way u bannaan tahay hadduusan garanayn, si uu u raadiyana uusan garanaynin dadkii xoolaha lahaa, inuu sadaqeeyo, masaajid ha noqoto ama agoon ha noqoto ama meelo guuda ummaddu isbitaallo iyo ceelal iyo jidaday ka faa'iidaysa ha noqotee, meelo si wanaagsan ummadda uga faa'iidayso inuu u geliyo ajirkeeda ka helaan way u bannaan tahay. waana dariiqa keliya u furan, isaguna inuu kaga badbaado dembiga iyo xoolaha aakhare in loo qabsado, ajirkiisii lasoo farageliyo oo khatar galo. su-aasha qaybta kale ah, qofka xoolaha saa u gadaya ma laga iibsan karaa? haa, waa laga iibsan karaa. isagu haddii uuba yahay qof meel wanaagsan u wada, waxaana wanaagsanaan lahayd on ku talin lahaa, waajib ma aha in xoolaha iyo iibintooda uu ku wareejiyo cid ka shaqaynaysa danaha guud iyo wanaagga, si iyagu iibiyaan una geliyaan meeshii loo baahnaayo loogu talagalay.